بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله داوديال وشوقي قار هي وإذن كيغا إيمانا يا استودي هيغا مقالة لندن waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulwaaxid cabdullaahi khaliif waxaa isku soo dabaraday ustaad muxiyadiin jiryanuur wadani oo kanada jooga barnaamijku waa wareysi aan la leenahay siyaasiga caanka ah faarax macalin dawaraa oon ka wareysanayno xaaladii ugu dambeysay geeska afrika madaxweynaha cusub dowlad goboleedkan hadda soomaalida etoobiya mustaf maxamuud cumar cagjar marka faarax tacriif ani igama baahna marka isgaarsiiya faarax soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته gaar haya waa golahaas gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo adduunka u joogan u gudboonyihiin dawladda guna kama qaadano gacan saarna mucaaradka lama lihin cid gooni ahna uma adeegno fikirka waa lagu kala gadsinaan karaa laakiin danta guud waa mid goori ayaan gabagabada hadalku waa sidii gujis Allah u naxariistay u lahaa aan ku garawne gaar hayo geeyiga ilaali daawadayaal saa idin sheegnay labeentii Soomaalida idin keenna barnaamijkan waa iska hor dhac weeye faarax doodaha ilaa sabtida iyo jimcahan qaban doono buu ku jira marka waa nin taariikhda geeska Afrika aad ugu xeeldheer marka isgaarsiiya shargareeya la wadaaga walaalaha kale faarax su'aasha hore soo ku weydiinayo waxa weeye saa la socotid yani xisbigii dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia annagu Soomaali kala duwan u naqaanaa ama kilka shanaad ama ogaadeenaya hadda waxaa loo doortay madaxweyne xisbigaas iyo ku-xigeenkiisiina hadda waaba waxaa loo doortay madaxweyne ku meel gaar ah see u aragtaa arrintaa marka بسم الله الرحمن الرحيم أرنتا أيضا هذا هذه شيء وان سود وينيا يا أيان سود وينيا نين كلا دورتي أرتوانين كينيا دجنا سنة بدن هذا ورهير كيسنا أنتو دجيني هاي ونشتغينا UN OCHA مصطفى إنا عجر قام بدن ما أنا قانو لها هاي sida runta ahna waxa weeyaan saan filayo inuu ninkii isku keeni lahaa qaybaha kala duwan oo farada badan oo halganka ninba meel uu kaga jiray mujtamaci guud oo ku noolaa waddanka Soomaaliyeed oo markiisa hore gumaysi ee xabashida ku qabsatay haatanna hadee maxay ahayd loogu inta badan loogu yeero regionka zone 5kii Ethiopia waxaan aaminsanahay inuu shaqo fiican ka qaban doono insha Allah bidin Ilaahi albaari nima waxaa jira halgan ku soo jiray sanado aad u fara badan oo ana la fiiraahdo oo runtii baal dahab kaga qoran Soomaali oo dhan meel la meeri joogto dhanbo uma yan dagaalamin kaliya inay Soomaalida Ethiopia xoogay ku haysteen inay xoreeyaan laakiin bal gadaal baa lagu ogaan doonaa ururka wuxuu ahaa gobonimo doonka ee nimankii deerka ku ahaa Soomaali inteeda kala tan maxay ahayd u dagaalameysay u xoreen lahaayeen oo Ethiopia u xoreen lahaayeen Soomaali inteeda kalena ku deerana oo wax allaale wixii maaragtay dhibaato kaga imaan lahayd dhanka oo been uga iimaaneysay ururkii hor taagnaa buu ahaa ayagana waxaan leeyahay arrinta si hadda u dhacday way fiican tahay sidaas la mid bay uga dhacday qowmiyadda Oromada waxaa jira niman OLF la yiraahdo Oromo Liberation Front liberation badanna waa jireen Soomaaliya booy ka mid tahay runtii dadka waxay u arkaan Oromo Liberation Front inay tahay waxa isbedel badan ka keenay gudaha gobolka Oromiya laakiin Soomaaliya boo ururka la oran jiray ayuu ahaa waxa weligeed nin kasta Oromo xornimo doonahay xamar buu marka ku soo higsan jiray higsigiisa xamar buu ahaa iyagana Oromo Liberation Frontkii heshiis baa la galay dadka systemka ku jira Ethiopia ka tirsanaa oo intaasay to maamulkeeda ka dhex muuqday ayay hadda u dhiibeen xilka ururkoodana fursad baa la siiyay oo maaragtay asagana isku maaragtay waa laga bixiyay argagixisadii inay waqti qaataan oo inta doorashada ka hartay si abaabulaan tartanka maaragtay mujtamaca guud oo gobolka Oromiya ay ka qayb galaan markii doorashada labada sano ku dhaweey ka hadhay la gaaro tanna way iska caddahay inay saan noqon lahayd amxaarada sidiisa la mid weeyaan dadka ka soo dagaalamay dibadda looma dhiibin laakiin dadkii maxalliga ahaa baa loo dhiibay haatanna dadkii ururkii maxalliga ahaa oo jigjiga joogay ayaa lagu celiyay talada inkastoo ururkii wax laga bedelay wax bedelkaana wuxuu ahaa wax si aniga aan u arkay wax wanaagsan oo aad looga tashaday tashi loo badiyay
ninka meesha loo dhiibayna waa nin runtii aan anigu aad ugu kalsoonahay nin allaala ninkii yaqaanoo dhanna uu leeyahay allaylehe talada maanta waa la haleelay ilaahay waan u baryaynaa waana lala talinayaa waxaan aaminsanahay isbeddel fiican inuu keeni doono insha allah waana lafna waxaan leenahay waqtigiina iska suga waxaan hadda idinka umaydan dagaalamaynin inaad xukun la wareegtaan iyo inaad xoolo yeelataan oo jabasha buuxsataan iyo inaad ummadaasayto xoraysaan ee dagaalamayseen guushana inta badan idinkaa keenteen laakiin haatan nidaamkii ka yaalla Ethiopia sida hadda u dhacay meel kastoo dhan buu uga dhacay aan ku qanacna waqti aan sasiina dib ha la isku soo noqdo xisaabaha dib bay u badan yihiin waa tahay arrintan hadda u dambaysa Mustaf iyo arrintan OLF u soo noqonaynaa dad badan waxay leeyihiin maxaa deegaanka Soomaalida gooni ku ah meelaha kale lama taaban ciidamo la gashay waxaa jira hadda federaal ah oo kaabiga ku haya dhibaato badan iyo biliqa ka dhacday marka waxay leeyihiin marka maxaa gooni ku ah oo gobolkan ay ka talintiisa loogu dayn waayay maxaa kale arrintan marka deegaanka Soomaali khasuuma ka dhacday gadaal baa lagu ogaan doonaa Soomaalida badanaa ma og wixii ka dhacay meesha iyada deegaanka Soomaali wixii ka dhacay 10 sano la soo dhaafay 8 sano oo batay wax adduunka meel lagu tilmaami karo hatta tii Nazi Holocaust lagu tilmaami karo ummadda waa la baabiyay waa la bahdilay waa la gumeeyay si aan caadi ahayn ayaa lagu sameeyay waxa ku sameeyeen wuxuu ahaa maamulka ka jiray markii oo Soomaalida ahaa Cabdiilay iyo lii booliskiisa iyo dadkii maaragtay dawladdiisa ka shaqeynayay waxa loo soo dhibay oo nimanka Tigray iyo general Tigray u soo dhibeen bay ahaayeen si laakiin hatta Tigray ay u hirgelin lahayn ba isaga u hirgeliyay ummadaasayto sida loo galay si la oran karo saaha ku sii jireen ma aha sida runta oo dhabto Ilaahayna nagu ogyahay in badan ay dadka gudaha joogay ay sheegi doonaan intii yareedo hadda isbedelka u dhacay maalinkii Cabdiilay la qabtay wixii ka dambeeyay bay nabad heleen si fiican u saxdeen dadkii shacabka ku noolaa meesha Soomaalida ku noolaa maxay Ethiopia kamid ahayd inta bay heleen fursad waxay gaartay heer hadday arkaan federal army mise federal maxay ahayd police ay ku cararayaan gabdhaha Soomaalida oo gobolka jireen kuwaasito ay ka cararayaan kuwii police-ka ilmaadeertooda iyaga waayo dil iyo kufsi iyo boob iyo dhac jariimo aan loo geysan oo Ilaahay inta ma jirto marka xurriyadoodan hadda ay intan haatay ku gaareen ma dhacdeen haddii Cabdiilay meesha uu jooga dad markastaba la haystay aan lahayn dad maaragtay gumaysi aanan caadi ahayn oo taariikh Soomaali soo marin lagu hayay bay ahayn marka anagoo dhan baa ka qaylinay aniga faarax kula hadlay ayaa aad uga qayliyay dad badanna way ka qayliyeen hal la badbaadiyo ummadaasan dhahan anaga baranay Cabdi Maalka Axmed Dr. Abiy Axmed bariir rasmi oo leenahay war gaar war ummadda gaar war mujrimka ka gaar ummadda dhuntay way baabacday inta ka hadhayaan la sii silcinay haddana colaad aanan iyaga diyaar u ahayn oo laga shaqeeyoy Tigray ka shaqeysay ciidamadooda jananadoodii asaga ka shaqeeyeen yaana la gelin dhibaatada arkaysi wax oraman oo dhaxay kulli asaga ka shaqeey wuxuu ku sameeyay ummadiisa Ilaahay baa sheegi kara oo iyaga asagu toos ugu sameeyay waxyaabihi baa hadda soo babaxaya waxyaabihi soo baxay 2,000 oo qof oo gaajo jeel loogu dhimatay 2,000 oo qof oo intay kaadidooda cabeen oo xaarkooda cuneen oo kii noolaa kii dhintay uu cunay oo la gaaray heerka yaa soo bixi doontaan mar dhawaad ogaan doontaan ummadda way baabaaday ummadda dilba wax lagu sameeyay caadi maaha cid kalena lama adeegsanin iyagoon baa la isku adeegsaday marka ummadda in la gaaro dhibka laga gaaro marka hadda dambe lagu soo duulay oo maartay ciidamada federaalka loo yeeray inta horteed baan anagu dhan qaylinay oo leh war ciidamada federaalka dira war ummadda hal la badbaadiyo xurriyadii buu ka qaaday dirna buu ku soo duulay meesha odayaashii dulmidiid ahaayeen ay ku wada hadlayeen arsabay ku careen rag waxaa jira Soomaali oo kilirka u dhashay oo intaasoo sana aan kilirka arkin oo naf ka dooneen Amxaara Xabashi iyo Tigray iyo dadka degan arsaba naf ka doonay baa jira iyo ximaayo ka doonay oo maalin kasta ciidamada federaalka ilaalinayeen asagoo maana laga ilaalinay marka waxa weeyaan ninkan luqadna uu kula wadaaga hilbana waad wadaagtaan كلمة نقول كرت الشيء قفت كجعلانة مساء سكوا أمنيس هذا مجرم يهي أو كدلي أو كدعي أو كبوبي قف إذا نسكت دين هنا وكلهات الدكية ماذا وأصجع وكو كيني كرم حماية دي وأتكو عراري نفبت كدوني مركا قبل كان وكدونا قبل هذا الكلام Soomaalida oranaysa oramaan lagu soo dushay oroma kugu ma soo duulin
dalna kaama qaadan rabto wax ilaahay untay oo kaa rabta malaha oromo oonan ka ahayn walaalnimo iyo deris wanaag iyo maaragtay diin iyo dad iyo wax kastaba oromay soomaaliya kala saari karaa oromada hadda lagu sheegaya dalka ku nool markii dib loo sii raaco 25% ee ka badan dhalashadooda waa Soomaali marka wax badan wax hadda ka hor dhacayna maaha wax Tigreed ka shaqeysay oo ahayd Soomaalida ha maartay sharafta Tigreed ha lagu soo celiyo colaad Soomaali inta la beero Soomaali Ethiopia inteeda kale marka afka laga geliyo oo ararteeda qabto horena way u dhamaadeen haddana intuu dambeysay la rabay in la israaciyo qorshahan ayaa ka shaqeeyeen ilaahay baa naga badbaadiyay ummadii marka taasay kaga duwan tahay gobolka Soomaalida war 70,000 oo qof baa lagu qiyaasay 57,000 inta u dhaxayso oo extrajudicial killings lagu sameeyay oo gaajal loo dilay wax kasta lagu sameeyay ummadda meesha degan macal dadka jiiraanka oo Soomaalida kuwa had kale Ethiopia cid ka samata baxday malaha gobolada galmudug markay u yartaa 1 qof buu ka dilay Soomaaliland markay u yartaa inta indhow ku dhow ka dilay war meel uusan ummad ka laaynin malaha annaga kula hadlayna gaaris buu ku leeyahay dadka dad inta u soo diray baa gaaris odayaashii waa nash annaga meesha reeto maxay ahayd ku joognaysan ku joogna ilaahay u sheegi kara marka waxa weeyaan mujrim ilaahina aan aqaanin kuna naxariisanaynin allana ka cabsanaynin baa annaga haystay waxaan ku mahadcelinaynaa in ilaahay uu naga qabtay kaas oo noo soo diray dad kale oo aan ka filaynin in maartay wanaaga laga helo ummadda Soomaaliyeed lagu badbaadiyo taasay kaga duwan tahay gobolada kale oo Ethiopia oo dhan ay kaga duwan tahay waatay faarax waaqica lagama tago cid ku khilaafaysa male hadda ONLF iyo dawladdii wada hadal baa u socda marka qof kasta fahmaya markaan ma qaban karaayo wajigada maxaa yeelay waxa loo baahan yahay maamul taas isweydiin male arrinta isweydiinta waxa weeye maadaama ONLF markaan aysan diyaar ahayn oo heshiiska wali dhammaan waxay ahayd odayaasha iyo ONLF in lala tashado mise in abi iyo groupkiisii qof yani macquula sida Mustafa oo kale la keeno markaas ku meel gaar uu si ahaado marka wada hadaladii ONLF iyo socdaan arrintaas la isku hayaa ma ahana in ONLF markaan aysan beeshis dhicin waa isweydiin male marka yaa fiicnaa marka in odayaasha iyo ONLF la tashado wuxuu leeyahay Soomaalidu markaan ma tashan kartee maamul hal la sameeyo keenaya wada hadalkan inay si socdaan soo dhow war sidan hadda ay u dhacday waxa u dhacday horta dad badan baa shiimada tashiga wuu badnaa dadka aad buu fara badan yahay intaas oo urur baa jirtay dowladmadiid baa jirtay siraaj baa jirtay qolo la yiraahdo waxaan oo dhan ba uu socday aqoon-yahankii dadka gudaha ku jiray waxa kulli way socotay talada lagu gaaray meeshan lagu gaaray Mustafana waa wax Soomaali ka soo baxday tii bay garab ku noqdeen markii maskaxdii Soomaalida la isku keenay wixii ka soo dhaxbay buu maamulka meesha jooga uu garab u noqday waxaana weeyaan wanaaga puddingka cadaanka dhahan is in the eating waxa weeyaan pudding inuu macaan yahay inuusan macaanin hadii la isku qabsado markii la cuno baa laga talin karaa la oran karaa laga sheekeyn karaa uu macaan yahay la oran karaa marka midda meesha ku jirta marka waxa weeyaan ninkan hawsha ha bilaabo asagaas inuu ka shaqeeyaa la rabaa inta hadda adiga jeegaysay ONLF inay wada hadal la gasho hadda way socdaan dawladda Ethiopia la gasho oo meel fog wax la isla dhiga waa loo baahan yahay waxa weeyaan waa the final bullet waxa weeyaan xabadda ugu halisan oo Soomaaliya ay leedahay Ethiopia waxa weeyaan ONLF ayagana waxa loo baahan yahay inay ka soo baxaan xilkooda ilaan xil markuu ku saaran yahay jaceelna lagu hayo it comes with a powerful responsibility taasana loo baahan yahay ku fikiraan Mustafana nin maartay waxa ka hor imaanayo maaha wax aan isleenahay dadka ugu fiican oo meesha hadda si ay si ku meel gaar ah sifa maartay arrimahaas oo dhan ba loo dhilaan dhiliyo oo wanaag looga gaaro dalkeena kamid ahaa dib badan ka soo gaaray meel kasta oo ku nool yahay cabsi ku noolaa walaalkii la dilay halka Nairobi la joogay Soomaaliya ka shaqeeyay ku soo koray Ethiopia gudaheeda oo luqadihii kulli wax kasta yaqaano jaamacada kaga soo baxay marka waa nin Soomaali oo Soomaali qaybaha kala duwan oo dhan ku soo noolaaday wax weyn ka qaban kara maxay ahayd wax loo baahay wax laga qabtay Ethiopia gobolka Soomaalida ay ku nooshay haatan marka ONLF waqtigooda ha iska yara sugaan wada hadalkan ha u socdo waxan waa wax iska dheer weeyaan hadday dal u dagaalamayeen dalka sidan hadda maartay wax ku dhaceen bay dan ku jirtaa hadday u dagaalamayeen shakhsi ahaantooda inay iyaga wax noqdana una maleen maayo taa inay tahay mana dhici doonto runtii mana dhicin waxaan isleeyahay way soo dhaweyn doonaan
arrintana saasay u socon doontaa ummaddana ha la badbaadiyo ummadda dadka hadda soo hadlahayo fiiri dadka hadlahayo oo dhibkana la ii geystay waa la ii dilay walaalkay baa la gowracay walaashay baa la gowracay biyaa la ii dhexgeliyay walaalay kufsaday gabdhahan gurayaan saa u hadlahayaan hadday saa u hadlahayaan dhowr bilood horteed intaana cabdiilay gudaha lagu tuurin saastay u hadlaanba ilma adeertooda iyo dhalyadooda intii dib loogu noqda xabad xabad loo gowracay aniga kula hadlay faarax oo Kenyaan oo 7 fac aanan dad maaragtay aan dhiig wadaagna hataa aanan gaarin oo dadka isku kaandhow ay yihiin niman aan maaragtay awowga 7 aan isku imaanayno xagga degan kuwaas oo ka argoosanaya markaan inta aniga hadlabo kuwii intuu gabal iyo dhulka ay degan yihiin iyo xara maalin guri intuu u tagayo dhibahay marka waxa weeyaan ninkan ilaahay baa ummadda ka qabtay wuxuu sameeyayna Soomaali ma oga dad yar baa og waa la ogaan doonaa laakiin markaasaa nin kasta oo dhihi doonaa waxaan suurtagal baa inuu qof bilow aadam diin kasta uu leeyahay diin la'aan kasta uu yahay inuu sidan oo kale u dhaqdo waana u dhaqday ninkii ummadda laga badbaadiyay ummadda waxay ku jirtay qasumay ku jirtay ummadda waa tahay daawadayaal waa showgi gaar haye oo idinkaga imaanaya stuudiyahayaga magaalada London waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulwaaxid Cabdullaahi Khaliif waxaa isku soo dabaraday ustaad Muxyidiin Diiriye Nuur Wadani oo Kanada jooga gaar haye waa golahaas gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo adduunka joogan gudboon yihiin dawladda gudna kama qaadano gacan saarna mucaaradka lama leeyahin cid gooniyahna uma adeegno fikirka waa lagu kala gedsinaan karaa laakiin danta guud waa mid goori ayaan gabagabada hadalku aan ku garownay gaar haye ugeeyga ilaali maanta waxaa noo jira barnaamij 4 galabnimo bacda casar saacadda Afrikada bari waxaa martino ah halgamaada weyn roodo afjanaam martino ah oo ayadu dumarka matalaysa jamhadda marka arimihii guud ahaan baan ayada ka wareysanayna arrintan madaxweynaha waa arrinta u taal jamhaddii laakiin bal dadka iyo inay isu keentay iyo marka isgaarsiiya 10ka markay u tahay yani 4 galabnimo Soomaaliya ay ka tahay marka barnaamijyada hore wadana farax ma maqashaa farax marka hadda Abiy Ahmed wuxuu ku doodi karaa Mustaf ma ahan xisbigii laga qaylinayay arrintaas waa arrin laftigeedu positive weeye marka Mustaf waa nin caynkee ah arrimihii hadda way saaran yihiin hadda saad ka sheegtay adiga oo laftiba halkan taal dadkii la cadaabayay dibkii baa yaal marka ninku nin ka bixi kara arrintan ma yahay ku soo dhow walaalow horta waxaan in kastoo Soomaali dadna dadaalahayay oo aad loo dadaalahayay waayihii dambe Soomaali meel ay joogto dhanba waa lagu jabiyay meel alla meesha joogto dhanba waxa weeyaan dhibaato Soomaali jamhuuriyaddii baa dhibaato qabsatay gobolladii baa intii la hagaajiyay maamul goboleed ahaan loo hagaajiyay oo ay hagaajiyeen Tigreeda hagaajiyeen oo centerka ku direen ayay Soomaali ay noqotay hilib bisil bay noqotay oo nin kasta cadkiisa ka goosan oo carab iyo cadaan iyo cid kasta oo dhanba nin badda sun ku shubo nin wax kasta sameeyo kubii gobolka Ethiopia kamid ah oo maalin kasta dilka iyo dhaca iyo boobka oo dhanba loo xalaaleystay ilaahay baa nasri keenay hadda Tigreedii baa ilaahay dhaafiyay cudurka asaaskiisa cudurka sunta meeshii laga soo miisahay yaa ilaahay dhaafiyay tii mar hadday dhamaatay wax kastoo dhanba way xoroobaysaa hadda si fudud baa loo xoroobaya jamhuuriyaddii wanaag badan baa la filayaa insha Allah biidni Ilaahi alkariim gobolkii wanaag baa laga filayaa ninkan Mustafa la yiraahdo waa nin Kenyaanka aqoonyahanka Kenya degan inta badan way garanayaan haddii la yiraahdo aniga la oran lahaa halkoo qof oo isleedahay maanta uu ka bixi karaa xilka asaga waa kuma Mustafa ma dhihiraa inactar ma dhihiraa waayo waan markay ugu yartahay inta joogo markuu xamar ka shaqeynayo UN OCHA uu shaqeynayay toddobaadka markay ugu yartahay mar iyo laba aan sarkeen waxay sidaa tahay waxa weeyaan nin hadda maanta argoosashay waxa aan ku dhaqaaqaynin walaalkii aabihii u dhalay iyo aabihii baa intii la qabtay oo gaari la geliyay maxaa Mustafa waa ka hadlayo dhibka dadka lagu haya laga daayo ya baabuurkii midna hore laga geliyay midna gadaal laga geliyay wiilkii intii laga tuuray baabuurka oo la dilay meeshii lagu dilay meydkiisa la soo saaray lagu soo celiyay gaari yaa aabihii la yiraahdo waxaa tiraahdaa la hadal jaraa'idka waxaa tiraahdaa wiilkayga saa gaari iska tuuray waana midda ugu fudud kaasaaba si silcan u dhimanin kuwa silaca iyo gaajada u dhinteen cadad iyo xisaab midna ma laha marka xaq ilaahay baa yaa nasri laga helay ilaahayga caza wajal uumay ummadan iyo dadkan iyo kulli uumay
oo makhluuqaad oo dhanba diin kasta nin lahay iyo nolol kasta ninka kule nin madow nin cad nin brown ee kulli uumay odaygii ilaahigii baa maaragtay nasiga noo keenay maantana waxaan is leenahay nin hadda kaga habboon mustafa shaqadaas loo dhiibay ma jiro anaa idin sheegay taa igu qabsada aniga insha allah biidn illahi albaari hadda ka hor baan mar allaale markaan wax aan idin sheega waan idin sheega waxaan dhaha layle meesha sidaa unbaan anaga bilow aadan baan nahay qof bilow aadam ilaahay unbaa maaragtay uumay wax kasta way ka suurtoobi kartaa intaan anaga garanayna oo daahirke oo aniga aan ka xukmin hayo nin ka wanaagsan mustafa oo meesha loo dhiibi lahaa anigu ima muuqdo waxaa la yeelayaa ha laga warsugo insha allah talada ha loo badiyo ha loo duceeyo ilaahay ha loo baryo ummadii baabaaday oo maaragtay waxaan ogaanta lagu sameeyeyna wakti bay qaadan doontaa ummadda inay dib u soo noqoto gabdhihii la kufsaday oo ilma adeertood ay kufsadeen ilma adeertood raggii markay ugu yaryihiin 30,000 aan ka yaraan oo ciidamada lii police laga dhigay oo loo xalaalay doofaarka inay intay doofaarka duurka ku jira intay dilaan hilibkiisa loo hagaajiyo cuna la yiri khamriga cabba la yiri aan aragnay ninkaas intuu maanta ninka oranayo dastuurka Ethiopia waa lagu xadgudbay kan baa la sameeyay oranayo ninka qofkaas wuxuu waxa jira meesha ma oga waxa jira ilaahay og meesha u soo noqonayna Faarax Soomaali waa Soomaali sida jamhuuriyadda siyaasiyiinteediiba ay u dhibateen hadda arrintu qowmiyad bay joogtaa oo oromadii iyo kukuyadii dadku waa ishabeynayaan ka siyaasi ahaan adinka xataa waxa idinka saaran arrintan hadda muhiimad waa taqaanaa marka dhibtii Soomaaliya ka jirtay xaggan waa yaala dad waxa jira iska ordaya oo xataa ONLF ka horeeya oo jaga iska raba marka maxaa ku talinaysaan dadka noocaasa si aan uga faa'iideysano xorriyaddan ilaahay cid ka soo riday oo hadda oromadan horboodayso see uga faa'iideysanaa waxa weeyaan xorriyaddan ilaahay baa fursadna siiyey fursad ka wanaagsan inama Soomaaliya hadda ka hor ha laga faa'iideysta oromada waa walaal halkiis baan u dhigeysta dhibka dhacay oo arkayseen kulli wuxuu ahaa wax uu Cabdiilay iyo Tigray asaga la shaqeynayso ka shaqeey oo Cabdiilay intuu hubka ka wada qaaday Soomaaliya oo dhanba xuduudada ku deganaa oo kulli hubka ka qaaday dhaxmaray waayahan dambe oo dhanba markii Oromiya dadka lagu laaynayo ciidanka la diray ciidan Soomaali buu ahaa ciidan kale ma ahayn Marishangul Gambeela way diideen in lagu shaqeysto afartii way diideen in lagu shaqeysto maxay ahayd Amhaaradii way diideen in lagu shaqeysto cidda kali oo maaragtay u noqdeen Tigraaydi dadka ay ku goosanayaan geeda la geedkay rabaan waxay noqotay Soomaali colaadda waana loo hagaajiyay waa tahay isweydiin male Cabdi Cumar dhibkiisa iyo wuxuu qabto laakiin adinka ahaan ka qowmiyad ahaan waa ku soo celinaya wad marka ku soo noqon see wax aan ku soo waday qowmiyad ahaan Soomaali horta waxay qasab ku tahay Djibouti joogo Sariir iyo Kandigad joogo iyo Nairobi joogo iyo ka Xamar joogo iyo maxay Hargeysa joogo kan maxay Gaddafi joogo illa kan kiisa Jambo waana isku dan in la wada tashada waa loo baahan yahay oo mar maskaxda la isku daawadayaal waa showgi gaar haye oo idinkaga imaanaya stuudiyahayaga magaalada London waxaa dhici kartaa internetkii ama codkii kolley hal su'aal baa noogu hornaa Faarax waxaan soo celinaynaa insha Allah maalmaha soo socdo doodiibu ka qayb qaadanaya maxaa yeelay waxaan rabnaa yani fikrado kala duwan marka hadda su'aashii oromada ayaan weydiinaynaa ahayd walaaltinimadooda iyo dhiigay daadinayaan bas su'aashaasaa noo harsan noogu muhiimsan laakiin arrinta kale waxaan u keenaynaa يعني سياسيين كلو بل إني كفكر دوينهين مركا قلبتنا واحد نوتشرا يعني مركي سومالي أفرتا كتهي ورئيسي رودو يعني إبراهيم عبد قوري رودو أفجنو وأيضو قابل سن يعني وعي قلنتا راجي دومر با مركا أفرتا قلبنا بعد عصر كتهي سوماليا UK مركز واللبادو كلا Minnesota kale markaas labada anaga noo tahay iyaga waa u 8 subaxnimaba iyaga u tahay marka Faarax waa isku dayna hadda su'aal baan noogu harsan hadii kalena hadda su'aasha ormada noo harsan intii hadda aan ka rabnay uu sheegay marka daarno intaanaan ku xireynaa laakiin barnaamijka galab soo socda isgaarsiiya barina waxaan noo aan leenahay haliyad kale oo iyadana hal abuurada
فناننا آمنة موسى وهلية عدوا بأيضنا بري جمعها صوماليا مركو تاي سجال كفيد نمو صوماليا مركي سجال كفيد نمو تاي يوكين 7 آمنة موسى نوغو قرن قلبتنا روضا كو قرن هذا دمر باما هينا رجي ميل ay ka dhaceen faarax ayaa ka haray meel ay aadeen lama hayo marka waa iska fasaxayna hadda faarax waan isku daynaa maadaama su'aalihii intii badnayd uu nooga jawaabay madaxweynaha laftigiisa Mustafa idin raadinaynaa gaar haye cidlama fariisanayo Mustafa laftigiisa halkaan keenaynaa so farna faarax wuxuu ku dagaalayo waxa ka mid ah qofku xiis waa loo qiraa Mustafa xisbigii dibka geystay kama soo dhax bixin ninku wuxuu ahaa nin banaan jooga oo يعني هيادو شقينيا سوى عندنا هذا هيادو هيستمره لابو أو أنا لف مركان ديار ما هشيس كل لما قلين لما مرة إلا سكبودو يجوا هذا الكوين وصعدوا مركا واحد يسوي دين لو هذا الكي سو مامول وبهنا مركا هذا سؤال شو المقري سنة ويدي ما إن سومالي اللي يرادو وحلا ماذا بس إن مامول اللي سو مركاتو حكدي هدي سومالي وح قبصة اللي يرادو إني سن مددر bay u baahan tahay isqaqabsi marka su'aashaas taal ma in maamul la dhiso si hadhow oo la fiyo arrimihii loo sii wado mise in yiraahdo wax soo dhista oo la isku qabso sidii bigaati labadaas marka faarax wuxuu xoog saaray ninkan in la keenay Mustafa inuu ka bixi karo marka halkaas aan ku xiraynaa galabta Soomaaliya marka afarta ka tahay waa wax hadda 3 saac iyo xoogaa naga harsan roodaan la balansanahay afjano barina Aamina Muuse Weheliye isla bari waxaan sugaynaa laftigeeda iyo sabtida Mustafa laftigiisa halkaan keenayna gaar haye isku dayna hadii Allah awood dalay ogolaado marka jazaakumullahu khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullahi si ay dadku uga faa'iideystaan wareysiga faarax intaasaan ku xireynaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa inoo galabta markay Soomaali ka tahay jazaakumullahu khayran salaamu alaykum wa rahmatullahi